madashan deeqaha kala duwan ee agabyada iyo lacagta cadaanka lagu guddoonsiinay carruurta lagu xanaaneeyo xarunta daryeelka iyo dhaqan celinta ee xaafadda Maxamed Mooge ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka iyo wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gudida culimada ah wanaag farista iyo xumaan reebista iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland deeqdan kala duwan ee ganacsatada dalka iyo culimada waaweyn ay gaarsiiyeen hormuudka ay ka ahaayeen gudida wanaag farista Soomaaliland ayaa wax badan ka taraysa nolosha carruurta halkan lagu xanaaneeyo wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud ayaa tilmaam kooban ka bixiyay hawlaha xaruntan u qabato dadka da'yarta ah ee lagu xanaaneeyo waxa ay samaysay in halkan lagu soo xareeyo markii walba 100 qof oo ardaydaas oo carruurta suuqa joogta 100 ka badan ma xareyn karo gudoomiyaha gudida wanaag farista iyo xumaan reebida Soomaaliland iyo xubno ka mid ah culimada dalka iyo waxgarad kale ayaa madasha ka jeediyay hadallo ku tacalluqa sida ay waajib bulshada ugu tahay in la dhiso akhlaaqda iyo nolosha dadkan da'yarta ee gacanta bini'aadanimo uga baahan walaalahooda reer Soomaaliland carruurtan dhaqan celinta ee laga soo qabtay magaalada Hargeysa meela aysan runtii aysan barbaari ku haysan waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa bacda Allaahi dawladda qaybta ay ku leedahay iyo meeshii cidada laga soo qaaday iyo mustaqbalkooda laga sii fikirayo waxaan leenahay dawladda ilaahay abaal ka siiyo madaxa shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa sharaxay taageerada ay xaruntan ka geystaan shirkadahan isagoo tilmaamay in bilowgii xaruntan ilaa iyo maanta oo ay jirto ay taageero kala duwan shirkadda Telesom ay ka geysatay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle ayaa u mahadnaqay cid kasta oo taageero u fidisa dadka da'yarta ah xarunta lagu xanaaneeyo carruurtana waxaan u arkaa waxaan idin sheegay dawaad aragtaan ilaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka idin yimi waa qiimaha iyo aragtida iyo rajada la idin leeyahay inaad hagaagtaan annagu budgetka aanu hayno runtii ma aha annagu waxaanu iska soo sameynay wasaarad ahaan وعوية حكومة أيها إسكالة هذي ماشلي قيمة يلاتو هذي حماة بيجا تعب كذا إسكالة ميزانية الدولة بقول خاف فتشت كود الله وتاكا ما هم يتكلم ملك الله كانوا ورجع ميزانية الدولة وسيرة هرتة الله واسعية ضدك وعيسو ليبين وحان وما هالدقيا وعيسو ليبين علماء إلى النسوق جالسين إلى الإنسان دربي إلى كحولان سلكي inay dadaal aad iyo aad u fara badan sameeyeen wixii ay ka soo qaadeen ay soo gashay gacanta ubadkan gacanta lagu hayo mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si faahfaahsan u tibaaxay sida shacbiga Soomaaliland iyo xukuumadda talada haysa ay iskaga kaashadeen sidii dalka hore loogu marin lahaa adeegyada arrimaha bulshada isagoo tusaalena u soo qaatay carruurta xarunta lagu xanaaneeyo waxaan aad u faraxsanahay runtii tanna maaha midii horeysay ee dawladda iyo dadweyne iska kaashado ilaa maanta aynu ku dhawaaqnay in guuris ku taagnay oo caalamku isa keenay dhatiray waxaan ku soo gaadhnay iskaashiga dawladda iyo dadweynaha waxaan isku soo kaashanay dawladda dalka waxaan isku soo kaashanay oo ilaa maanta gacmaha isku haysanaa adkeynta nabadgelyada waxaan isku kaashanay dib kasta oo dhacda haday abaar tahay haday wax kala kasta tahay inaan isku kaashano iyo inta meelood ee wax lagu xanaaneeyo haday dadka dhimirka tahay haday tahay dadka maartay kuwa maanta la dhaqan celiyo meel kasta oo dhib ka jirto sida darteed baa tahay waajib in waa saaran inaan gacmaha isku qabsano meel kasta oo maartay hawl ka jirto halkan naftiima aniga maanta imaha markii koowaad waan garanayaa dadkii maalintaasi dhalinyarta sida hayd iyo sida dayacanayeen laga soo ururshay mar darbiyada oo runtii aad iyo aad dadkii bilow wax ku lahaa shirkadaha waaweyn khayrka qabeen runtii maartay gacan weyn ka geysteen Dahabshiil iyo Telesom ka geysteen haday dhismaha tahay iyo haday maartay agab tahayba ilaa intii ka dambeysay dawladdu wax ku dadaashay xukuumaddu inay sustain gareyso ama wixii waaritaan wax jiritaankiisii sii wado iyo dawladdu ay maanta xukuumaddu guuleysatay